السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhalinyartan waxay ka doobaysiyo intay maqli doontaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta aan gelin qodobadana doonayo runtii halkan inaan maanta soo fadhiistaan ka hadlo waxaan doonayaa bartaan isku garanno ninkaan hayna isku sheego maadaama ayna bariyahan dambe iskugu iman saaxadahan hadalka xilligii 2013 madaxweynaha qaranku uu magacaabay wasaaradda boosaaska iyo isgaarsiinta ayaan warqad siiyay 2016 shirkadda isgaarsiinta Telesom aan ugu ogolaanayo in ay survey ka qaado badeena lacalla hadaynu u baahno ama iyaga soo dhigaan ama inagu aan dhigano cid kale soo dhigteen xaliga fiber optic halkii la dhigi lahaa si loo dhigi lahaa inay survey noocaas qaado ayaan u sameeyay ogolaaday warqad u qoray ogolaashaha dabeedna madaxweynuhu hawsha markii la bilaabay shirkadda bilowday madaxweynaha jamhuuriyadda uu yeeray arrinkaas wuxuu iga weydiiyay ka wada hadalay hadalkaygii ka bacdi wuxuu go'aankii noqday madaxweynuhu igu amro in aan ka noqdo go'aanka aan bixiyay ee aan shirkadda siiyay in aan ka noqdo ayuu amar igu siiyay طبعا waa amar madaxweyne halkii waan ku kala qaadanay waan aqbalay markaan taga xafiiskii waxaan garan waayay waxaan ku qori lahaa warqadan kaga noqonayo warqada maadaama aanu shalaan bixiyay warqada ogolaashaha dibadna igu adkaatay waan kama noqon طبعا madaxweynaha wuxuu baa ku adkaatay wasiiru amar siiyay oo amarkii qaadan waayay inuu ka mid noqdo golihiisii wasiirada isna xilkii biga qaaday subaxii baan u imiday waxaan madaxweynaha halkii intaan xafiiskiisa ugu soo galay ayaan u sheegay madaxweynaha inaan ku qanacsanahay wax caqdadan aan ka qabin shaqadiisina uu qabsaday ku saxsanaa waliba inuu xilkayga qaado maadaama aan amarkii fulin waayay siiyay inta ka bacdi waliba aan la shaqeynay laakiin intuu xilka hayo madaxweynahaasi aan ixtiraami doono sharaftiisana ay ilaalin doono oo aan la shaqeyn doono anoo dabada jooga madaxweynuhu soo dhaweeyay halkaana wuxuu waliba igu asixiyay inaan mushaharkaygii sidiisu sii qaato ilaa imika horta ninkaasana hadday is weydiin lahaydeen ama hadday iga weydaan sida ragga laxanka saareemka gulwadaynta ee muusigaba ka dhigay ereyadooda kale hadday iga weydaan ama ay istiraahdaan war odaygan waxaan mucaarid buu noqday waxaan fogu ku hadlaya waa maxay horta ma yihiin ninkaas un baan haye taasi waa iga afeefo inaan intaas u garanno un baan doonayay ujeeddada hadalkaygan maanta runtii laba qodob oo mid aan si fudud dul marayo abaaraha dalkeena ilaahay ka soo jeeyo abaar xun baa inagu dhacay runtii oo aad iyo aad u qalifsan shicib iyo dawladba waa lagu xukuumad waa la gurmaday aad baa wixii loo qabtay ilaahay intii wax ka qabatay ka abaal mariyo laakiin waxaan qabaa xaqii ay nagu lahaayeen ummadaasi aynu ilaahayna inaga ogolaan lahayn ilaahay nagu dhawaan lahayn sida haydugumaynaa soo bixin weli halkaa hagrasha jirtaan islaahay sida hayd hawsha looma gelin taa intaas ma ku dhaafiya runtii waxaan doonayaa qodobka labaad oo runtii igu culus doonayo maanta halkan aad wax uga yiraahdo waa saldhigga ciidamada ee berbera ee waddankan imaaraadka laga siiyey ayaan runtii qabaa inaan caddeeyo inaan la dareenahay dadka qaba inaan saldhiggaasi dalkeenna wax faa'iido ah oo u leeyahay aanay jirin dhibaato mooyaane sabab aynu ciidan aan dalkeenna ahayn oo weliba hub tiiro dhaadheer wata oo siyaasadda hagaysa dalalka wadale iyo sababta aynan garanayn dadkaasaan la dareenahay inaan aad arrinkaasi u salugsan intii dalka iyo dadkaba jeclayd hore uga hadashay baan arrinkaa la dareenahay qodobkaa waxa ii dheer haddaan qabyaaladeeyoon hoos u dhaadhaco ree awdal noqdo waxbaa ii sii dheer intaa waan saluugsanahay un maaha waxbaa ii sii dheer soomaalidu waxay tidhahdaa ninka maalintii maska arkaa habeenkii xadhigu ka sasaa xadhigiina dadka ku aragto waad sasaysaayo waxbaad moodaysaa markaanu nahay runtii aan si hawshaasi hoos u dhaadhaceen reer galbeed ee aanu noqonno ree awdal waxbaa noo dheer aad iyo aad waxay ugu dheer yihiin aan halkaas dul taago haddaba oo aan bal aad u sifeeyo
xilligii kacaankii maxamed siyaad barre dalka gacanta ku hayay ninkii gacanta adag lahaa ee Soomaalidu ka soo horjeestay hubka loo qaatay jabhadaha loo sameeyay gaar ahaan qaybtii waqooyiga Soomaaliya bariga jabhadii SNM markii ay ka soo horjeestay hubka qaatay waxay saldhig ka dhigatay Ethiopia waxayna ka dhigatay marin wanaagsan Djibouti oo isku xidha jabhada Ethiopia degtay iyo dadkii kale gacanta siinayay ayay halkaas Djiboutina marin wanaagsan bay ka dhigatay isagoo taa ka jawaabaya maxamed siyaad barre wuxuu soo dhigay ciidamo ka soo jabhada ka soo horjeeda Djibouti iyo Ethiopia Oromo iyo Afar labadaaba wuxuu uga jeeday si uu ugu dibaaqo ama uga hor keeno maadaama halkan iyagu ay taakuleen soo siinayaan jabhadahoogii Soomaaliya ka soo horjeeda labadii Oromadii iyo Afartiiba wuxuu soo dejiyay awdal sida saxda ah SNM inay hawsha gasho way ku saxsanayd maadaama ay la dagaal galayso wadan dhan oo hubaysan oo ciidankiisii adduunkiisii leh inay meel salka dhigto oo dabada geliso way ku saxsanayd inay marin hesho Djibouti way ku saxsanayd SNM saxbayd haddii kale si kale wax uga qaban kari lahayd ma jirin isagii marka hadaba dagaalkii uu la geli lahaa buu awdalka wada keenay labadiiba wuxuu soo dejiyay Boorame dabcan dacid waa inay Ethiopia soo weerartaa Boorame Djibouti soo weerartaa Boorame laakiin halka khaladkaasi dabeedna dadkii Boorame joogay maalinta ama awdal joogay oo u badnaa dhalinyaro iyo waayeel waxay dabada geliyeen ninkii hubka meesha keensaday ee cadaawadanba u sameeyay ayay dabada soo geliyeenoo isagiiba hoos galeen isna wuxuu ka dhigay inuu iyaga cadow ka celinayo laakiin may jirin cadaawad gada buursiye ciise ka dhaxaysa ma jirin cadaawad saakay ciise ka dhaxaysa isa maro ka dhaxaysa ma jirin laakiin waxa uu sheegi kari waayay hadaba dadkii wuxuu sheegi kari waayay maalinta ninkii siyaasiga ahaa ama hungurinayay ama han siyaasadeed lahaa ee ka soo jeeday dalkan gobolkan awdal ayaa dadkiisii u sheegi kari waayay war cadaawad dadkan iyo dariskayda ka dhaxaysa ma jireen cadaawadda waxa idinku wada oo ninka hubka idinka dhex keenay oo haddaan hubkaa laydin dhex keeni lahayn cidinba idinma qabsateen ismana weerareen dhibaatana may dhacdeen dabeed adeer markii meeshii uu ka baxay maamulkii maxamed siyaad barre 3 nin baa nagu soo baxay 3 nin waa ninkii raacawdana siyaasiga bariga ahaa ee dadkiisa waxba u sheegi kari waayay oo markii maxamed siyaad barre dhacay si dadkiisa wax iskugu sii ahaadaan ayuunbuu ka bilaabay waana la qabsaday ila weli wuxuu doonayaa inay dadkiisii khasaaraha u geystay inay wax isku sii ahaadaan oo aan la arkin ceebtiisii iyo fashilkiisii markaasuu wuxuu ka bilaabay waana la qabsaday waa dal isaaq dowlad isaaq waxaasuu ka bilaabay nin kalaa soo raaco isaaqan laftirkiisa ahaayo waa ninkii labaad wuxuu ahaa dadkii ku hadhay maxamed siyaad barre ee u adeegayay xilligii beeshan dhexe ee Soomaaliland maanta dhammaanteed ay ka soo horjeesatay maamulkii xilligaa jiray ka soo horjeesatay ayuu ku hadhay dabeedna mar walba si isku muujiyo lafta iyo dhuuxu jabin jiray ila waa nin doonaya reerkiisa iyo ehelkiisa oo dagaalamaya oo halka soo horjeeda iyo haddana isagu ku hadhay halkan mar alla markii isbedelkii dhacay dowladnimadii Soomaaliland wixii la dhisay ayuunbuu halkan soo taagay si uu isna uga mid noqdo reerkiisa iyo dadkiisii buu doonaya markaas baa hadalka bilaabay yaa samarro ka cafiyay buu weli wasoo kuwii dabada ka toogan jiray saaqa soo kuwii hadda waa ninkii laftiya dhuuxa ma jabin jiray oo isagu yani isku saaqiday berigii tolkii hawshii wadeen labadaa nin iyo nin saddexaad baa nagu soo baxay isnoo ninkaas saddexaadna adeer nin han siyaasadeed leh oo laakiin siyaasadda meel xun ka dhuuqa oo xumaanta oo xoqa markuu wax doonayo dad isku hor keenayo beliijin oo ka shaqeeyay for example tusaale ahaan adeer maalinta aynu galnay doorashadii golaha deegaanka ee Soomaaliland dee dalkoo dhan bay doorasho ka dhacday meelaha sibaa loo kala boobay khalad iyo sax baa la galay saylac baa doorasho ka dhacday doorashada maalintaas saylac ka dhacday dabcan waxa meel ka noqday meeshii nin samarona ku soo baxay hargeysa unbuu ka dhawaaqayaa waxaan booranayaa waa ninka kale hadda siyaasiga ee dadka doonaya inuu hogaamiyo waxaan booranayaa wuxuu ka bilaaboon ciisuhu waxay ahaayeen SNMtii noo soo halgantayoo waxbay nala qaban jireenoo waa inaanu gurmoonno wax la qabanno oo dabeedna labadii reer oo dee aragtidooda basal gaablo waa meel la xoqayee saylac annagaa leh mee annaga kuwa kalaa leh mee kuwa kalaa leh dood iyo hadal iyo mur iyagoo aan anaga waxba isweydiisano sidaas waxaan baan uga jeedaa sheekada dheeradeed ee noocaas oo kale waxaan uga jeedaa khaladkii maalintaas siyaasiga aanu gallay maalinta hubka iyo
nala soo dhex dhiganayay ee maxamed siyaad barre oromi iyo cafar awdal soo dejinayay ninkii siyaasiga ahaa ee samaroon ee halkaa joogay ummaddii wax u sheegi kari waaya khaladka maalintaanu gallay ayaa ilaa maanta aanu la daalaa dhacaynaa oo mid annaga ha ka hadlayaa kii kale ee berigii siyaad barre ka hadlayaa nin kaleo meel xundhuuq oo dee xoqayaa ka hadlayaa dabeedna 30 sannadood dhalinyartaydii iyo dadkaygii xitaa sometimes waxaa ku dhacday inay garan waayaan waar dalkee leedihiin marka dhinac walba dee hawlaha noocan kaga soo furmaan adeer saddex haddaba maadaama 30 sannadood aanu la daalaa dhacayno khalad siyaasi oo aanu hal mar gallay hal mar maanta diyaaruma nihin inaanu mar si fudud haddana mar kale khalad iyo fudud intaanu gallo ay dabeedna 30 sannadood damaanu la circirno diyaaruma nihin saldhiggan military haddaba maanta halkan la keenay dalkeena la soo dejiyey wuxuu saameynayaa maaha dalkeenoo keliya qarankan buu saameyn ku leeyahay waddamada deriskaan nahay ayuu saameyn ku leeyahay aanana waxaan ogahay adeer markaa Soomaaliland hoos uga dhaadhaco maanta nabadda jigjiga ku seexatay wajaaliya boorama ku seexdaan nabadda Jabuuti ku seexataa dalalkan aanu deriska nahay ee Jabuuti de xeebta Soomaaliland ee galbeedku nabadda Jabuuti barido ayay baridaa waxa ay khuseeya haddaba oo si gaar ah si khuseeya xadka dheer ee dalka labada waddan ee jaarka la leenahay iyo adeer aad iyo aad khusees ma doonayo si dib yarna adeer mar labaad inaan hawsha noocaas iska galno go'doon dambe gallo oo Jabuuti colo noqdo oo Itoobiya colo noqdo diyaarumay waxaan daba cadaynaya halkan maanta aan soo fadhiyo si qaranna waxaan la qabaa ragga hore ee ka hadlay saldhigga si hoose oo gobolna toos bay si khusaysayo war deriska aan dalkaan nahay haddaanay xukuumaddii aan anagoo shacabana qancin dalalkii jaar ilaa arkan jaar iyo qaran boo khuseeyay oo aanay waddamadii jaarkiin ay ku qancin adeer waa ka soo horjeedaa si adag baan arrinka uga soo horjeedaa dalka horaan la qabaa ummadana haddaba saddex talaan soo jeedinaya adeer markaan hawsha noocaas soo socdo mid waxaan soo jeedinayaa xukuumadda waxaan leeyahay war marka inta aamusan inta hadlaysaba waxaad u tihiin dowlad baa maanta u tihiin madaxweyne la doortay oo ummaddu jeceshahay baa madaxweyneyna xitaa waxa ka xishooda in ay macaaridku madaxweynaha wax ka sheegaan ayay ka xishoodaan in la wada ixtiraamo xaq bay noogu leeyahay wuxuun baan ka codsanayaa xukuumadda war marka la yidhaa waxbaa inaga khaldan oo waxaa ma garanayno dee dadka un qanciyoono Jabuutiba 5 bay haysataa iyo idaacadda BBC dayna nacab iyo xamar baa loo socdaa iyo waxaas wax dadka qancinaya maahe si xukuumadeed iyo dawladeed inaan loo qancisano dalka qancisaan maalka doonana talada labaad waxa siinaya dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada reer Hargeysa gabdhiyo wiilalba waxa haysataan maanta fursad waxa haysataan fursad aqooneed waxa haysataan fursad ilbaxnimo waxa haysataan fursad shaqo waxa haysataan fursad fara badan oo ayna haysan dhalinyarta kale ee gobolada dalka kale joogta intaasi waxa ku hesheen maaha xukuumadda helin meydaan xadin qabyaaladku meydaan helin waxa suuragal ka dhigtay caasimadnimada oo suurtagal ka dhigtay waxaan ka codsanayaa inaad dadka ugu horeeya ilaashada Soomaalilandnimada noqotaan Soomaaliland ba caasimad ku taargeysa reerkan la idin la dhex socdo bariyahan dambe nin hal loo siyaasad doonaya idin la dhex socdo war beeshiina uma baahdina waxa u baahantii Soomaaliland baan oranaya talaas saddexaad waxaan siinaya reer awdalo waxaan leeyahay waxaan arkaa niman dee bariyahan shaashadaha u taagan oo oranaya waxbaanu taageeranayo ama waxba ka soo horjeednayo waxaan leeyahay wadaanagii haddaa anoo kale iyo rag aan ka mid ahay oo dawladda la jira oo maanta ka mid ah oo mushaarkeeda qaata haddaa darteed wax ku taageertaan ama inaan macaaridaho anoo kale ila mid nin dee macaaridoo kale haddaa wax ku diidaan waxaan idin sheegaya war labadeeda midkayna wax badan ma ogin labadayada midkayna wax badan ma ogin ummadda kale ka dheeraado waayo aragnimadii iyo wixii soo maray iyo xaaladaad maanta ku jirtaan wax ku qaato ha degdegina ayaan iyagana runtii ayaan odhan lahaa intaa ka bacdi waaba ka baxay dhalinyaro aad baa u mahadsantiin